aragtida kiniisaddu waxay ahayd inuu tahay waxa allaale iyo waxaasi la samaynayay paganism ama shirki inay tahay 1 January 25 December waxoo dhan waxay kiniisaddu waagi hore u arkaysay inay mas'ala shirkiya tahay oo aanay marnaba ku banaanayn diin ahaan laakiin sida uu dhigayo maalan encyclopedia ingiriisku sida uu sheegayo mu'arrikhiintu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyahay haba yaraatee ciise horta taariikhu dhashay inaan cidi garanaynin waa marka labaade احتفالكي كواد الله احتفال بعيد المسيح 336 meelahaas inuu bilaabmay waa marka saddexaad waxa laaliya waxa ihtifaalka la sameeyo oo dhami inay hayeen dhaqamo ay lahaayeen gaaladii hore sida geedka haduu yahay geed baa jira ay la wareegaan oo Christian tree ay ku tilmaamaan oo shamac iyo wax la sursudo geedkaasi asliyan Chinese kii hore iyo faraacinadii hore iyo waxa ay isticmaali jiro alxayaat alkhalida iyo waxbu tilmaamaabay oran jireen waxa ku soo biiriyay gabigiisaba geedka kan jarmalka qarniga 14aad meelaha mise qarniga 16aad ayuu geedka kan bilaabay iyagoo marka hore waliba fikrad kale loo bilaabay qarniga 17aad baa ingiriiska gaadhay geedkan gabigiisaba marka la sheego si kale marka inuu tilmaamno waxa laaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo Saint Claus ama Baba Noel waxa Francisco yiraahdaan oo ah odaygan gadhka cad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin barafka la dul jiida dul ordaya ee sideeda maxaa la yiraahdaa ghazal ay ka hayso ay rumaysan yihiin inuu ka soo daadego guriyaha halkan yara sare qiiqo ka baxu ka soo galaa bay yiraahdaan habeenkii 25 December tahay dabeetana kicadu gala midfaada halka raashinka lagu kulayliyo guriga midfaadiisu taga halkaas oo carruurta sidii leetal khadarka Soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kale iyana guda dabeetana halkaas wax dhiga oo ay carruurtu ka qaadata iminkana dadka waaweyn baa sameeya oo sidiisa leeg oo isticmaala iyana waa aqoon hore qadiima oo Yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta 25 December asliyan wuxuu ahaan jiray ciidii loo ciidi jiray cadceeda Yurub waqooyigeeda dadka degaa waxa waqtigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceeda la yiraahdaa la bariyaa inay soo noqoto marka ihtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedu dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopedia-haasi ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen Romanskii oo fikradan qaatay oo ay aad ugu ballaaran tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yiraahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lama garan hada goor u dhashay afar qarni baan kiniisaddu waxa ka diidaneed waqti ku dhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yiraahdaan Christmas Day aanu ixtiraafno oo 1 January maxaa laga dhigay markaa qola kamida kanaaysta qaybo kamidi waxay yiraahdaan inaana waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qola waxay u qaateen January 1st inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qola kale waxay yiraahdeen maya dadku buu dabaaldegay oo xagee ka timi 1 January in la dabaaldego waxay yiraahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray gugiina de March buu ahaa dhexdiisa waana tii Babylonianka iyo Romanskii hore bay dabaaldegi jireen laakiin Romanskii markay kalendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in 1 January la dabaaldego dabeetana tii Romanskii qaldanayd baa la qaatay dabeetana waa la dabaaldegay 1 January astronomically macna ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto seasonada marka la eegana waa seasonka ugu liitaba macna uu sheegaya ma jiro waa jiilaal sida ogeed wax loo dabaaldego meesha yaala ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay wadaadada kiniisaddu waxay isku dayeen inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaan oo dhami waxa weeyaan koow dabaaldegani waa dabaaldeg mushrikiin ilaahay marka koowaad waa marka labaad waa mushriga waxa ku sii raacay kristan wadaadada kristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labada kooxood isku raaceen inaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabaha ay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tilmaamay koow waxay yidhaahdaan nasiibka ayaa la eegaa
oo waxay rumaysanayeen caadadaasi ay rumaysanayeen waxay sheegaysay reerkoo dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldega marka la samaynayo January bay dhahaan kowdeeda qofka kuugu horeeya kuu soo galaa hadduu nin dheer oo tima madow noqdo bay dhahaan nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday kuu soo galaan laakiin dhib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilmo yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxa iska lahaan jiray Asian Egyptianiski iyo Chinese-ka labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan Jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu Jesus yahay oo isagana hal la qaado ilmihi yara waa la qaaday geedkii qolada yar lahayd waa la soo qaaday habeenkan in la soo jeedo khabri badan la cabo waa la sameeyay marka maanta la eego Christmas-ka iyo dabaaldegiisa iyo January kowda iyo dabaaldegeedu dunida maanta dib bay ku haysaa yani waxay tilmaamaan inta waxay gubata inta khamri la cabo inta khasaare la geysto waa un ayaamo loogu talagalay in bini'aadamku waasho ay hadda u egtahay anoo iska soo koobaya waxaan leenahay mowqifka inagu aynu ka taagnaan karnaa muxuu noqon karaa mowqifku iska cad yahay waxa uu cad yahay waxay tahay awalan islaamku waqti la ciido uu soo koobay laba waqti quraan ku koobay waa labada ciidood ee islaamku yaqaano labada waqti la ciidaa munaasabad bay leeyihiin waa laba rukniyo arkaanta ugu waaweyn islaamka kamida marka ay dadka muslimiinta dhamaystiraan oo ah rukniga xajka iyo rukniga soomka inay dadka muslimiinta ciidaasi la yimaadaan wana kii xadiidka saxiixa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi tilmaamay markuu Madiina yimi iyagoo laba maalmood ay cayaaraan lebu yimi markaas wuxuu yiri ma hadaan al-yawma labadan maalmood la cayaaraya maxay waxay dhaadeen kunna nalcab fiihima fil jaahiliya waqtigii jaahiliyada ayaanu labada tan cayaari jiray nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu ku yiri inna allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku bedelay labada tan laba idinka khayr badan idan nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamay labadan in la bedelay laba ka khayr badanna lagu bedelay labada ka khayr badan ee loogu bedelayna inay labada ciidood yihiin waa labada qura shariicada islaamiga ay sugayso wax allaale iyo waxa ciid ka soo hadha ama mawlid nabi ha lagu sheego ama rajab ha lagu sheego ama diin ha loo nisbeeyo ama gaala ha loo nisbeeyo ama cid kale ha loo nisbeeyo waa waxba kama jiraan yani ciid kale oo islaamka soo arooray oo yaqaana haba yaraatee ma jirto wuxuu ku soo koobay nabigu taasoo qura waana tii xadiidkii Aisha ay sheegaysay inuu Abi Bakar soo galay iyadoo laba hablood oo ansaarta kamid ay ka heesayaan oo labada hablood hadda kuwa heesa ma yahayn bay Aisha leedahay yani dul fan u baxay oo heesa sida kuwa aynu naqaano ma yahayn laakiin laba dumar oo ala fitratihim isaga heesaya ayay ahaayeen Abi Bakar baa ka xanaaqo wuxuu yiri ma mazaamirtii shaytaanka baa gurigii nabiga aad la soo dooratay maalin ciideedna way ahayd nabigu wuxuu ku yiri ya Abu Bakar إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لام كانوا اختصاص شيء يبو نبغو استعمال إن لكل قوم عيدا واردول ولبا عيد يمالنا احتفالان بودان بيلا يبو نبغو يري وهذا عيدنا كم بانا أنك أمحي عيد يدي ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويان أما ولكل وجهة هو موليها عيد والله سبحانه وتعالى ينصق واكا أما عيدها كالصهرة waxay yihiin intooda badan tashabuh ama ku dayasho lagu dayanayo gaalada iyo ku dayashadooda waxaanu naqaanaa in adilla badan ka soo aroortay oo reebaysa inaynu ku dayanno marka ay yahay mutlaq tashabuh wala radiyay umur muayyana in laga daydana wala radiyay ciid in laga daydana wala radiyay nooran karna أولاً إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحي نقول برين من كاسي وضضي مران إنه إلهي كبرين إننا نمرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما لو البإلهي وحين ويدي سنة كواس المغضوب عليهم يا ولا الضالين يهود يا كريستان جدك مران إن أنا لكم مرين أياد مالك استوي دي سنس إذن وأدلة المامسة
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نصوص تربضا القرآن بالله صاح حشرية ننكيب البلادين وقبهانه اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية كتاب كاسيو دمانتي بكا ورما يوم ان عيدها iyo waxa lamida iyo gaalada ku dayashadooda uu kitaabka gabigiisa sheekh uu qoray ha uu raajico waxaynu naqaanaa inuu nabigu yiri salawaatu Allahi wa salaamu alayhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dul ninkii ku daydayda ee isu ekaysiya iyaga ayuu la mid yahay buu nabigu sheegay salawaatu Allahi wa salaamu alayhi waxa kaaga filan inuu nabigu tilmaamay la tatabacunna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabb latabactumuhu حديثكي صحيحين كويا لا معروف كان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه كوي يدين كهريه جدكودي با راعي دونتان بو النبي يقول تاكا يا دودون markaasuu nabigu wuxuu yiri salawaatu Allahi wa salaamu alayhi haday god masalugalay galaan dabku waa masaagalay nooc kamid ah inteenan mala waral baa la yiraahdaa laakiin tuka yar yar oo carabtu dhankeeda u badan weeyaan waa la family god masalugalay haday galaan buu nabigu yiri waa ka daba galaysaa isweydiinta waxa ay tilmaamaysaa in taqliid acma muslimiinta ku dhici doono waxa xadiidku tilmaamaya xataa waxaan macna sameeyeen in laga dayan doono hadii la oran la haday dayax qabtaan waa ka daba boodaysan waxba ma ahaateen oo markay dayax u guuraan inaynu ka daba guurayno laakiin nabigu wuxuu leeyahay haday god masalugalay galaan waa ka daba galaysan god masalugalay maxaan madow iyo qurmuunahay inuu leeyahay yani masaagalay godkeed intuu leegi maxaa qiimo uu leeyahay yani xadiidku waxa uu tilmaamaya waxyaabaha aan macnaha balahayn ee nolosha qiimaha ku sameeynaynin ee wax bini aadam laga qaata ahayn ee aqliga saliimkii xataa aanu keenaynin in lagu raaco inaad ku raaci doonto idan Christmas day iyo jubileum iyo maxaa la yiraahdaa kowda January waa dhaqamo asliyan shirki iyo mushrikiin ka yimi markii dambana uu kristaan qaatay foolxumadaas oo dhan isagoo wada leh hadaad adna sii daba gasho waa juhru dabkii kama gadisna waayo waxaan noloshaadana macna ku lahayn astaan gaaleedna waxa yiraahdeen ilaahay rasuulkiisa kuwanaanu raaci doona al-yahuuda wa an-nasara ma yahuudiya kristaan ba qala faman buiro ya kale raacisa wa xadiiska abi saciid al-khudri kiaba hurayrana waa kii tilmaamayay kafaris wa rum miya bay ku yiraahdeen faqala wa man an-nas illa ulai oo dadba waa ayaan ku ahayn buu nabigu leeyahay labada xadiisba ku tabaqmaya ninka intan raaca waayo رومانسكي ونبي روم كانوا حديث كا كشاغي iyo nasaaradu xadiidka hore ku sheegay labaduba maanta way isku sii raacsiisayeen intan dambe ah maxay 25 December kan Christmas ka iyo maalinta ka sii dambeysay January kowdeeda waxaasoo dhan markaynu isku darro waxa ay sheegayaan in mamnuuc yahay qofka muslimkii inuu waxaasi ku daydo waxa uu nabigu sii tilmaamay nimankan mukhalafadoodu حلالي وحان منفع سبين المخالفة إني من الدين بطي بل أشياء قاربوا نبي التلمامة ويلقوها خلافة مثلا وحول نبي إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم معن استان ومع استان خلافة أبو نبي قولي فويدكم محي صبغ قاس السماية خالف المشركين احفوا الشوارب ووفوا اللحى النبي قولي ور مشركين تخلافة وشهروا تنقى بصدق قد كان لبحا النبي يقول يا خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم واليهود خلافة أبو النبي يقول وهي كباهكم التكدان يدونكم كباهكم التكدا يا خفاف كينبا كواسي وحي شيء أشياء قارولة المامي حتى أوصاف العبادة وصلاة حقا لا لقبطة سو إلهي لو متكريو صلاة إلهي وتكري سيئة تودا يدين كا كان نبا إلهي هدي عبادة اللي يريد إلهي كاقا كان عادات كم حاضو مالين سبركا عاداتك يا وحنا منفعة بالهين يعني خير بكو جرين عبادة دي بقى خالفوهم oo iyay salaadaadu tooda way kaani iyadu kaba ku tukaba lagu yiri khifaafkaaga gasho si aad iyaga u khilaafto gadhka xinaysa baa lagu yiri madaxa si aad iyaga u khilaafto waxay tilmaamaysaa oo nabigu salawaatu Allahi wa salaamu alayhi uu sheegaya inayna nimanka inaynu ku dayana ahayn ciidahooda iyo xafladooda inaynu ku dayanin nusuus badan baa laga dalishan karaa nusuusta caamka sheegnay waa laga dalishan karaa nusuustii tashabbuha sheegaysay waa laga dalishan karaa
tafaasiirta waa laga daliishan karaa xataa mufasiriin badan oo salafka ka mid ah ayaa waxay ku fasireen aayadan qur'aan ah walladina la yashhaduna zuur wa idha marru bilagwi marru kirama oo sanadadu ka asaxay waxay ku tilmaamayaan ibnu siriin oo kale wuxuu leeyahay waa shacaaniinka waa ciid kristanku leeyahay mujaahid oo kale wuxuu ku tilmaamayaa waa acyaad almushrikiin waa gaalada ciidahooda oo kale buu ku tilmaamayaa الربيع بن أنس وكله وحليه وأعياد المشركين مفسرين بدنوا السلف ككمدة أيها وحيلين شهود الزور كان لشيء جيابة آيات القرآن أي شيء جيابة وحي كفسر يعني نيتهاي عيدها قالوا إليهين إذا قفك مسلم كه ما دامه النبي وحديث صحيح أنا ودك ولا يوري له إلا بدو دم الموت ويدي كبدلي بل واحد قرن كرتاه حتى بوسكا نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح عن نبوي ما وحو يري إلى الرسول كيسيا وحن كنا ندري ماشى النواف لا يراهضه إنان حولك قالوا أيام كنا ندري مركز النبي وحو كوي بوانا ماشى الله يراهضه بيدينا حولك قالوا أيام كنا ندري نبي وحو كوي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ماشى أدلا ذي حولان قاليا ميوسنا مؤلي تريبون نبي يري جاهلية هراء عابد الجرتين مركز سوري ماي هل كان فيها عيد من أعيادهم بنبغوري هذا ما هو ما لا يكون عيد شرينا وقت جاي احتفالات ككل جن شرينا ميتي مركز سوري ماي نبغو مركز سوري حكوري أوفي بنذر كذا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم نذر كاجا يسكو أوفي بنبغو كوري صلوات الله وسلامه عليه يعني لما أوفيو نذر كي معصية الله كصاب سيسن أمر النبي آدم وحيانه هيسن كصاب سيسن حديث كان محو شيء يا وحو النبي والصحابة كانوا ديدي استفسار وحو كويدي ماشان وكنا درين حوراك وقاليو إن يا ما عيد قلا قال هذا إلى هيد أما مال سنة مول الشراء أما وحاسي إنه كمل يا هيد أيو نبي وديدي تسوي حي شيء يسمرك عيد نوى اسمه جنس كلمته مكان يا زمان بوالغو اعتباري كرا ساد ردد مالنتنا ولا ركرا ومال عيدات مكان كنا ولا ركرا وكي نبي وحديث كنت المام إلى قبر جاي كدقين محي عيد مال اللجوء عيدها كدقين إن جمعنا وكي عيد كل شيء زمن يا مكان هو نقرته إذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ما دام وصحابي كان ومركو يري النذر بان وفينا يا وسؤالها كان ويدين استفسار كان واحد لقى فهم يا نوي هاي إن ودي لها هداي وحني وحا وافقده وحي شيء يسايناني وحكاني بناني ولذلك marka aynu soo koobno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah taariikhdoodii hore nawriij iyo ciid kristan iyo mid majuus iyo mid kale midnaba inay sameeyaan uma bannaanayn manay samayn jirin salaf lumana lagama arag bal kuwan iminka diinta lagu soo daray diinta laga dhigay ayaan ummadii hore muslimiinta ahayd aqoonin يعني كون مولد كالنبي جاء معين كنا سجلفتي سو تاريخ ده الله هو ما همرك كوه والنبي يقولون سنين الشيء بالله هو لكن والله بيتبان الربيع الأول بهيد مسداد الربيع الأول بهيد مستقال بهيد علماء التاريخ واتقان نقاش ترى بدنا لقى شيء والرأي جا وترى بدنا الله بيتبان الربيع الأول رأي شيء جايه لكن إنه سنين ده الشيء أيها هو حقه هذا اللي هو على كل حال ده سجلفتي سواء نقارنا محمد بخيت المطيعي مفتي مصر هore sida uu soo naqlinayo iyo rag badan oo kalaba inay dawla al-Abidiya ama Faatimiyiintii Masar inay ku takallaftiisa bilaabeen Faatimiyiintii Masar waa kuwa ku tilmaamay Ibn Kathir inay ahaayeen taariikhda islaamiga dadkii ugu sharka badnaa dad ka mid ah inay yihiin waxaba lagu tilmaamay koodi koowaad bilaabay inuu yahuudi ahaa reer aalubaytka sheegtay Masar 280 sanadood bay ka talinayeen afar iyo toban boqor oo iyaga ka mid ah iska dhaxdhaxlay waa wadooyinka inta istaaganba dadku u sujuudi jiro oo lagu qasbi jiray qofku markuu la soo agmaro in sujuud loo dhaco waxa uu sameeyay 6 maalmood oo la ciido say taariikhyaanadu tilmaamaan maalin Caliya maalin Faatima maalin Xasana maalin Xuseena maalin Nabiga iyo maalin boqorka meesha haysta maalmo kalena wuu lahaa laakiin 6dan waa 6dii ugu caan baxsanaa bay ahaayeen waxay sheegaan wadaad irbil joogi jiray barkii dambe ku kadsoomo masalada tan sameeyay oo ninkii koowaad ee dadka ahlu sunnah sheegtay masalada tan ku dhawaaqaba la yiraahdaa soo koob waxay leenahay gaalada waxa qudhe bannaan in lagaga daydaa waa waxa uu xanfaca
waxa qudhe bannaan in lagaga daydaa waa waxa wax anfaca ee ah maalan aqoontan cilmiga ee bini aadamku kala dhaxlay aqoontan horta gaala ma laha yurubna ma laha ee waa dhaxalkii bini aadamku ilaa aadam uu soo kala dhaxlayay qolaba waxay ku soo dartaba ama ninba inuu soo raaciyaba waa wixii reer nabi aadam soo kala dhaxlayay laakiin iyana intooda in la dafiro maaha in weyn bay ku dareen in weyn oo aad uga weyn inihii la hayay ayay ku dareen intay qoladan muslimkii huruday mushkiladda taagani markaa waxay tahay intii macnaha samaynaysay cid ku dayanayso le aan kaga dayanna arki maysid intii macnaha samaynaysay oo ah aqoontaas iyo wixii loo baahnaa cid kaga dayanaysa iyo cid hadal haysaatoona ma jirto intii lagaa reebayna waa la wada daba socdaa oo dawladda shacabka dadku kowda January baa la soo fasaxaya Christmaska la soo hambalyeynaya ka baa la sameynaya inta diin la'aantaana waa lagaga dayanayaa intay diintu sheegtayna waxaad moodaa in la rabo in la baalmaro ama si aan lagaga dayan hadday tahay in Kristan ama Yahuud ama Majuus ama gaal kale waxa laga qaadan karaa waa waxa wax anfaca waa waxa si basharka ka wada dhaxeeya dhaxalkii reer nabi aadam wada leeyahay waa waxa si aqoonta waa waxa kitaab ilaahi alla dunida tan waa abuuray daraasada lagu sameeyay cilmiga xaqiiqiga taas oo waliba aynu leenahay waa in laga jafjafaa aragtiyaha badan ee aan diinta waafaqsanayn dabada lagaga sii nabay iyadoo laga jafjafayo waliba kaana aynu u baahanay inaynu qaadano ama inaynu Christmas iyo Happy New Year iyo April Fool iyo wixii la noocay inaynu ku dayanaa waa diin la'aan dadkana in loogu yeedho maaha dawladaha muslimka ku abtirsada ama sheegtaana ma yahay inay fasaxaan dad muslima iyo in fasax laga dhigto iyo in wax u dhowtoona laga dhigo iyo in la weyneeyo midna ma ahaateen idan inagoo dood badan ba laga yaabay inaynu ka wadno kuwii diinta loo nisbeynayay kuwa aan diinba loo nisbeynay diin gaaleed loo nisbeynayo bal gaaladii kristanka ay isku sii waafaqsan tahay diinta wataniyada inay ka timid inaynu tii wataniyada ka timid u dabaal degnaa waa waxa aad u liitaa